ururka haweenka Samatalis gobolka Salal ayaa deeq dhara u qaybiyay 80 qoys oo kamid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanka Bariisley oo kamid ah degmada Saylac maayirka degmada Saylac Mudane Xuseen Idla Barkhadle iyo xildhibaan Cabdinaasir Jaamac Xoosh oo iyagu dadkan deeqdaasi u qaybiyay oo hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa mahad celinayna ururka Samatalis oo soo gaadhsiiyay haweenkan geedhaad dar aradbeela oo fiican ururada kale ee haweenka ee sida Samatalis oo kale ama dibadda joogan ama gudaha joogan laftooda waxaan leenahay sida uga soo qayb qaat walaalihiinan abaaruhu tabaaleeyeen ee xooluhu ka dhamaadeen aradbeela maxay aradbeel ku dhacayna sida kuwaas ay wax soo gaarsiiyeen waxaad u heli kartiin soo gaarsiiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim maanta bishu tahay 23 bishii shanaad sanadka 2016 oo joogno geedhaad lawyi cadde waxaan halkan maanta ku qaybinay dar ay soo direen gabdho ka tirsan gobolka Salal oo magacooda la yiraahdo ururka Samatalis ayaa noo soo dhigay dhawaan dar aradbeela iyagoo soo direen horena ceelgaal intii hadheeran kala geynay feedaweyn iyo geedhaad oo imika joogno waxayna si fiican baan u qayminay dadkeena waa ninka arkaya muuqaalkeena dhex joogno hadda qayminay baahidooda laakiin intaas ulma way ka badan tahay haday dunya tahay iyo haday mood tahayba baahid aad looga muuqata ilaa xilligana waa abaar aan taaganahay iyadoo haddana degmadu ay dhulkooda iska barwaaqayle inta oogada deeqdan dharka ayaa waxa lagu soo hagaajiyay maamulaha shirkadda Dahabshiil ee magaalada Saylac Mudane Ibrahim Ali Cabdillaahi waa markii u horeysay ee ururka Samatalis oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa isla markaana ka soo jeeda gobolka Salal ay deeq noocan oo kala soo gaarsiiyaan dadkii ku tabaaloobay abaaraha ka dhacay gobolka Salal Maxamed Cawaala Daahir Radio Hargeysa magaalada Saylac.